البطة هاي الله أكبر وما قلنا والله بها مركز إنكوا حريرك نحبك صبر ولا مركز حريرك يبغوا وصلوا منها كسر الله أكبر وقصح من بدن runtii intooda maxaan ku raadinay horta waxa adduunyaha oo yimaada waxa weeyaan horta waa qas aad iyo aad xanuun badan waxa jirta adiga oo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ووراشين سرير السمن channel channel كان نقدر أولنا ساعنا وchannel كيني سرير السمن channel waxa maanta aan inoo bilownay oo bilowno hadii la hadaado weekina laba channel soo doonaa barnaamijka magac baxay maxaad ka taqaanaa jacaylka oo hadba inuu soo martiqaadi doono qofka isleenahay jacayl baa ku dhacay ama qasad jacayl buu uga soo joogay hadii ilaahay yiraahdo barnaamijka maanta waxa marti noogu ah walaasheen Mushtaaq Maxamed Faarax oo ah dabana jacayl runtii jacayl in badan ay soo waday oo maxaan ku rahanay wiil Soomaaliyeed ay badan soo wada socdeen maanta nacam ay ka hareen ama wada ay xaaladu iska meel cakran marayso bawr maxay naga siin doontaa jacaylkiidaas iyo halka ka soo bilaabmay iyo maxaan ku rahanay walaasheen مختار ولاشن مشتاق محمد فارح سؤال مشتاق وسؤال برامج سرد السمن شنو وندو ولا لو أدنى كلام هالدنيا سرد السمن شنو هذا يو شنو سؤال في الوالد ويديسي كنتي هذا كذا فوالو ويبشتي حرير إلى هذا الحصانة كبعد الحدي سنة أنا قلنا كسري وين كانوا يسعنوا أيام بعد ما نقولين بالكسرة يعني ما الله كم إذا بتسبب قارن مهر كيسي مركا محمدا كنتي أدبر معي هذين وان حمصدي لا اختار بان عندي وقالت عاد قدرتي مركا أنا كيو تهريبي هذا أنا كذا وقبل ديسكورسين وتهريبي كذب البطة الله أكبر وما قلنا والله بها مركز إنكوا حريرك نحبك صبر ولا مركز حريرك يبغوا وصلوا منها كسر قبل عمص إنك أول حسنا وذا السعودة أو حسنا ما عندك أيوة إنك أقول أوجين قبل كورسنا هاي قبل ما كان موضوع كي بس تلك تبدي سكت ما تلك تبدي شوفتي هاي كدمنا هل كان سلها رجسون بمهاك فدا هاي مركي طبعا ده إله سبحانه وتعالى هو قرأ معنا هاي قد أو كل بنت سوق سكت شو جوا بحصل هاي مركي سوق شو جوا باوت كم باكحي هاي قد كلت مركي إنه مركي كورسلي إنك هالسما إن تذكر هدين بتهريبي أو مركي سوق سوق هدين بس وحبة يجي سعودة الحرير كيني وسيتري أنت أنا تهريبي كهر ينتو تهريب دونوا ما يحرير يقولوا يسعد هاي وده كله تعال هو ما بابا ودكتور كل أنا مرة ببرت سوي تاجنا هاي قدرت نويل على عرف كنا ماشيس هاي مركا يضم حاجة أنا حرير كيد السعودة وطن ده أنا عرف وكالي هاي ما بروح ما عرف كده إله بس سبحانه وتعالى تمصل نص عشان أنا عرف كل هاي الله سبحانه وتعالى بقى إيش ما عرفت يا مركا عرف هذا كله هاي مركا أنا حرير كان سيد وضع معناه مركي أنا نقول أكيد الكورس ده أول حمص ده حتى أنا استيلو أيام معنا مسكو قان صدق أنا قان صدق هاي إن هذا ما يدرين إنه ده ساعات بالورد تلاهم قفك ساعات يسوق المبتدئة marka raad inta leeg bad ku rabtay adigoo jacayl u qaba oo inkaas la wada socdo markii uu guursaday raad inta leeg bad ku rabtay intaan ku soo noqon ku soo laaban oo ku sheegin in nacab xiriirkiina soo dhisnaado nacab raad inta leeg ku rabay guurkiisa inkaas runtii waxa la oran karaa de kullu fahmaysaa adigu waa qof aad lix sano aad maartay asleed isaga mooyee cid kale ma garanaysaa ma gaarin ممكن سلس ورنيتكم سوسو كليا قلبي كويس وده كل داوع كقاري أدوس كدريبسة كنت أنا قال لها دوري داوعي ما بينما هذا الله أكبر وقصح من بدن رنتي أنتوا نحن قراداني قلت واحد أدوية أوي ولا لا وحوي هرت وقص عادي أنا حمن بدن
waxaa jirta adiga oo qofkii jeclaa oo awalba isaga mooyaane aan cid kale maanka ku haynin markuu kugu durgursado naxdin haddana naxdin kale ay kugu biirto waa qiso aad iyo aad u xanuun badan runtii qisooyinkaasina waa sheekooyin soo noqnoqday weeyaan maxaad u diraysaa fariin inamada Soomaaliyeed ee iyagu inaan la sheekaysta oo inaan nacam wax ahli wada galay oo cad meel wada dhigtay haddana inaan kala guursadaan ama og inay iyagu inaan jeceshahay dee inaan kala haddana isku guursadaan maxaad fariin u diraysaa sarada aad baan kaaga mahadcelinayaa runtii inamada Soomaaliyeed meel kasta jooga waxaan leeyahay hablo way la dhashay way dhaleen way waan dhali doontaa de qof dhan oo maaragtay waqti soo wada marteen iyo jacayl inta la eg macnaha in la dhibaateeyo wallahi runtii aad baan uga xumahay marka inamada fariin waxaan u dirayaa inaanay dhibaatooyinka ay hablaha ka ilaaliyaan runta u sheegaan haddaan markaa diyaar u hayno dee mid kale meel ugu diyaarsan de kolley iyaga ku dhowdo ma jeclin qalbiga laga dhaawaco marka waxaan odhan lahaa habla walaalihiina qalbiga ka dhaawacinina runtii haddana aniga dhaawacay gaari heer waxaan taaganahay inaan guursanba ama sayda ku gaboobo bismillaahi raxmaan ilaahay kaaga masaxa qalbiga ilaahay horta duurkii dawaba lagu geli lahaayo dee jacayl baa ka weyn oo meesha yaalla balse maanta سجي بابن جوجل marka waxa weeyaan ilaahay qalbiga kaaga masaxo jacaylkaaga kaamaro mid kale oo kale oo ka masaxana ilaahay siiyo insha Allah wallahi inamada Soomaaliyeed fartaan in qaataan ma jirina horta rag iyo dumarba qof markay og yihiin inuu qalbigiisa qof ay ku jiraan inaanay cid kale u taraarixin baan rajaynaynaa insha Allah markaas qoyskiina ma ogyahay jacaylkaas ilaa dhakhtar aad u gaadhay maxaan ku raadaan ilaahay kaas maray ma ogin qoyskiina wax ma ogin aad iyo aad gurigu way igu iman jiray aad baa lagu yaqaanay qof ani 6 sano wada socoteen iyo dheeraa isma la ogaanay iyaga qoyskooda wax ma ogin arrinkaas oo soo xiriiriyaan ninka qoyskooda iyo qoyskaygu intaba waan ana waan aqaanay iyana way yaqaaneen wiilka marka runtiida kolley marka aan ku dhacay waxa way yimaadeen marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala sunuka ay qoray dad isku ogyahay dad isku ogyahay isagana wuu ducaynaynaa inuu ilaahay u naxariisto balse marka cafisay jacaylkaas uu kaaga baxay markii hore inkastoo dad ka heshiiseen boo xiriirkiina inuu sii socdaa noo sheegtay inuu gabadh kale guursaday adiga oo meel u jooga ma horta ka cafisay intuu la qofka bilaadanka dhinto inaad cafido way kood ku khasbantahay Soomaa marka waxaan leeyahay ilaahay maarka jannada ha geeyo waa cafisna weygay ilaahay aan naxariisano u ducaynaynaa runtii ilaahay adigana qalbiga kaaga reebo ku kale oo wanaagsan isaguna oo dibooska si ku buuxiyo kastoo kale kulay meesha qof tagayaan qof kale digi karin waxa rajaynaynaa ayaan ku rajaynaynaa ku kale oo ka khayr badan insha Allah wadayaal sida la socoteen barnaamijkaasi wuxuu ahaa barnaamij ay walaashay mushtaq noogu martay ahayd aad iyo aad buu mahadsantahay sidii codsiga nooga soo ajibtay mushtaq aad iyo aad buu mahadsantahay naamada walaalo daawadayaal halkan barnaamijkan oo kale ay kala socon doonto weydii 2 jeer taxanay noo noqon doona hadii Allah awood la ogolaado channelka waxaad subscribe iyo like iyo waxaan ku leeyahay share gareynta inta waa xaqiina aad iyo aad wada mahadsantahay